dareenkayga maanta lama soo koobi karo aadan u faraxsanahay 5 qof oo Soomaali ah oo maaragtay maanta u soo baxday Soomaali waxaan qabnaa han weyn in Soomaali wax badan oo maanta inta laga dhiman inuu qabsoomi doonaa waxaa gobolka Minnesota ka qabsoomay kulan lagu dhaarinayay musharaxiintii Soomaaliyeed ee ku soo baxay doorashada kuraastii ka dhacday gobolka Minnesota sanadkii aynu soo gudubnay ee 2022 waxa ayna ahayd doorasho taariikhi ah oo ay Soomaalida ku dhaqan Minnesota ku guuleysteen helidda 5 kursi oo muhiim ah waana markii ugu horeysay taariikhda abid ay soo baxaan hal mar 5 qof oo Soomaali ah or affirm that I will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota, and that I will discharge faithfully the duties of the office of the Senate of the State of Minnesota to the best of my judgment and ability. Do you? I do. Congratulations. I want to say thank you all so much for coming out today. Everyone mentioned that there was a lot of snow coming out. I know it was a rough road, but we appreciate each and every one of you, the dedication that you've shown. We want to match that dedication to you. We're going to work hard day and night for you. We are 5 strong now. Within the Somali caucus. alxamdulillah aad aan faraxsanahay inaan maanta idila joogo oo ay nagala soo qayb gashaan daarashada aad baan ugu faraxsanahay inuu Sheekh Axmed Taajid joogo isaga quraanka ay baray dugsigiisana ku soo koray aad baan ugu faraxsanahay inuu Axmed Taajid joogo dad badan baa jooga oo community-geena wax u qabta waa loo ordaa kursi laakiin dad baa naga dambeeya oo anaga na soo saaray oo community-geena wax badan qabta way joogaan maanta business-iyo ku jiraan community-geena lead gareeyaan. Thank you for inviting me to this special occasion. It's a wonderful celebration. I'm delighted to be part of it, and I look forward to working with the new members and all the members of the community over the next 2 years. dareenkayga maanta lama soo koobi karo aadan u faraxsanahay 5 qof oo Soomaali ah oo maaragtay maanta u soo baxday Soomaali waxaan qabnaa han weyn in Soomaali wax badan oo maanta inta laga dhiman inuu qabsoomi doonaa wallahi aniga shakhsi ahaan farxad weyn bay ii tahay ummadda Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeedna farxad weyn bay u tahay inaan mataqaanaa mar saddexaad ku soo laabtay golahan anigu kursigan aniga kaliya ugu fadhiyo Soomaali baan kursiga ugu fadhiyaa shaqaasatan gabdhaha Soomaaliyeed baan ugu fadhiyaa inaan tuso dad inay shaqadan wax la qaban kara ay tahay ay hoggaan qaban karaan ay meel walba gali karaan marka maalin walba oo mataqaanaa ku soo laabtay kursigan ama meeshan dhex taaganahay waxay iga dhigan tahay inaan yididiilo gelinayo gabdhaha Soomaaliyeed ee siyaasadda raba gabdhaha Soomaaliyeed inay ka mid noqdaan hogaamiyayaasha gobolka Minnesota. You made it here. Your commitment to the future of the state of Minnesota is by engaging us. So you've told us what you want in the future. We're going to work day and night to make sure that we stand for those who need the most. We stand for every Minnesotan. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.